iyo ku-xigeenka ciidanka booliska Somaliland iyo gudida nabadgelyada ee gobolka Togdheer oo hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi Walaaleeye ayaa ka hadlay mudaharaad rabshado wata oo maalintii shalay ahayd gelgelay magaalada Burco kuwaasi oo khasaare soo gaarsiiyay goobo ganacsi iyo sidoo kale dhaawacyo soo gaaray ciidanka booliska Somaliland intay ku guda jireen joojinta mudaharaadkani waxaana bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer ugu baaqeen inay ka waantoobaan khasaaraha ay gaarsiinayaan goobaha ganacsi dadweynaha reer Burco waxaan u direynaa halkan inay maaragtay nabadgelyada ilaashadaan oo dadkaas oo runtii ay tuug iyo dad maaragtay raba inay meheradaha dhacaan ay ku hoos dhuumanayeen ku saabsan nabadgelyada xukuumadda ka mas'uula ciidanka booliska iyo ciidamada kala duwan ee qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa nabadgelyada ka mas'uula guud ahaan sidaa daraadeed cid kasta oo isku dayda inay sameeyo ama abuuraan falal nabadgelyo darra oo ay kula kacayaan nabadgelyada ka jirta maaragtay dadka ganacsatada iyo hantidooda iyo wixii la mid ah waxay ka qaadaysaa xukuumaddu tallaabo adag bay ka qaadaysaa booliiskuna shaqadoodu ka qabsanaya aad iyo aad baan runtii u ammaanaya ciidamada booliiska iyo ciidamada militariga shalay howlgalka soo afjaray iyada oo aan hal qof oo dhaawacmay iyo hal qof oo wax kala gaadheen aanay jirin iyo 20 askari oo saraakiil ku jirta ayaa dhaawac shan la gaarsiiyay Somaliland dhagaxa biliiska way la taqaanaa laakiin mar bay ogaan doontaa ay dhagaxa ka gaabsan doonaan hadii Ilaahay ka dhigo 16 baa ku dhaawacmay saraakiil iyo askari soo jira iyagu dadaalay inay amniga sugaan runtiina ciidanka biliiska iyo ciidanka militariga oo dambe noo yimi iyaga labadaba waxaan uga mahadnaqayaa habkii wanaagsan ay loo dejiyay magaalada askar ciidanka iyaga biliiska saacadii ay ku bilaabatay labadii wax laba ahayd ilaa 6dii hawshaasaan wadi waxaan ku dadaalay ragga dhaawici inaan xabadkiin oo shacbiga waxba yeelin waana ku guuleysanay waa 6 urur kamaanaan 6 bixin dhinac walba waa u jirnay ciidanka amar baan siinay waa kuwa ayagii dhagaxa la dhacay lallaahi hadana shacbiga reer Maxamed baan sheegayaa waan kala hadlayaa haween nabadgelyadu waa qaali qoradeena ma taqaan ruuqooyga qolada koonfur baa taqaan oo yiraahdaa nabada naas la nuuga leh ummadan nabadgelyadeeda hal tuso oo hal loo sheego inamadeeda noqdayaasha dadka dhalaha qabsadaan Shucayb Xasan Cusmaan Shucayb Kingish Kalsan TV magaalada Burco.